daysane berri ciyaar culus baa jirta waa Tottenham iyo Liverpool. Tottenham sidii uu qabtay Antonio Conte lagama badin ilaa hadda horyaalka marka la yiraahdo Ingiriiska inkastoo 3 ciyaar ay baaqatay ciyaarihii hore laakiin kooxo waaweyn kuma soo aadin dabcan ciyaartan waxaa la oran karaa Antonio Conte waa tijaabadii koowaad ee lagu qiimeynayo meesha uu geyn doono kooxda la yiraahdo Tottenham maxay kula tahay bixi ciyaarta waxaan u maleynayaa Liverpool iyo Tottenham ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhaxmarayso laakiin Tottenham way ku adkaa doontaa sida ay u istaajiyaan xawliga ay ku socdaan Liverpool qaasatan weerarkooda oo Salah iyo Mane iyo Jota waxaan ognahay inuu meel walba uu ka ciyaari karo oo numberka 9 ka dheeli karo geesaha ka dheeli karo dhexda ka dheeli karo waxaan qabaa hadii qaasatan ciyaartooyda dhexda Liverpool inay aad u fiican tahay kubadda markay qabstaan isla markii ay ka gaarsiiyaan weerarka waa in la helaa Conte waa inuu ku dadaalaa ciyaartooyda dhexda joogto Henderson iyo ciyaartooygan kale asna dhexda ka dhilo Isbaanishka Thiago Alcantara dadkaas oo dhan in la celiyo qaasatan waxaan kale qabaa ciyaartooygan numberka 2 ka dhilo oo la Alexander Arnold oo gool aad u qurux badan Newcastle ka dhiliyo kubadahana ku soo rida haddana bilaabay banaanka inuu ka toogto ma u maleynay Tottenham in sidii Newcastle oo kale ay gadaal aad u galayso laakiin haday gasho halis ay ku jiraan qaasatan ninkaas kubadaha oo soo dhigay iyo Salah oo xariiqan 18 ka qarabto marka Conte arinta way ku adagtaa laakiin Tottenham hadii ay la soo baxaan ciyaar aad u heer sareyso una dadaal badan una socod badan haday helaan waxaan qabaa in ay Tottenham meeshaas guul ka keeni karto ama barax ka geeni karto numberka 9 oo Tottenham laftiisa waxaan u maleysaa inuu san sidii hore aan Harry Kane oo hal gool kaliya dhaliyay hal goolna oo dhigay laakiin ninka cabsida ku abuur kara Liverpool inuu yahay Hun Min oo aad u dheereeya aad u laakiin waxaan kaloo qabaa Harry Kane in Conte oo ku amro inta badan uu soo noqdaa dhexda kubad ka soo raadiya in la dhaho dhexda ha imaanin horadaada joog xariiqan 18 mana qabo inuu bedeli karo oo awood oo ku fadhiisiyo kursiga mal way ficnaaleed in Harry Kane la fadhiisiyo oo is arko inay ciyaarihiisa hoos u dhaceen kadibna oo meeshaas awood ka soo qaad laakiin Liverpool way ku adkaa doontaa inay si sahal ay ku garaacaan inkastoo Liverpool ciyaartii ay la timid Newcastle aysan qaybta dambuule ciyaar aad u fiican aysan ahayn haddana rag waxaa jooga hadii wax soo gaaraan lahuba inay wax dhalinayaan Mane iyo Salah iyo inay kubadda hore iyo Jota iyo aad wax u dhalay Alexander Arnold difaaci inuu ka qayb qaadanaya dhalinta marka waxaan qabaa Antonio Conte inay ku adkaanayso xaaladaas oo in uu guul ka gaaro inkastoo gurigiisa uu joogo kooxdan ay u nasatay Liverpoolna ay ciyaar intaas ciyaaraysa ay daalayeen taas inuu ka faa'iideysan karo ayadana ay dibkeeda leedahay oo koox iska fadhiday oo hal mar timid ayada lafteeda dhibaato leedahay laakiin aniga waxaan qabaa Liverpool waa adag tahay si loo joojiyo ayadoo horyaalka u jeedo kooxda kaliya horyaalka ka celisan City inay tahay Liverpool ayaan ognahay sida Pep Guardiola oo u yimid haddana sidii ku socotaa laakiin horyaalka waxa kaliya ka celi kara waxay tahay ciyaartooydan Afrika day aadan yaa bedeli doona ninka bedelay Salah oo kala ma Mane oo kala ma taasna waxa u maleysaa inay tahay cilad weyn oo Liverpool haysato Firmino iyo Jota inay bedeli karaan muu maleynahay labadaas ciyaartoy day baxaan daysane laakiin ciyaartan xagee loo kala badan karaa ma is leedahay Liverpool weerarkeeda Antonio Conte inuu babac dhigi karo ma noqon doonta inuu difaac galo oo siraahdo Liverpool ka gal difaac oo shax ku ciyaaro 3-4-3 oo siraahdo difaac ka gal difaac haduu galo Liverpool difaac ismacilin karaa bay kula tahay waxaan qabaa aniga inuu difaac kulli oo gali doona ninka Antonio Conte waa nin Talyaani oo difaac ku takhasusay waan ku qasbanyahay inuu Liverpool difaac adag oo ka dhisto haduu si difaac ka dhisan waxaan qabaa waqti hore ay sidii ay Manchester United gurigooda ku yeelaan oo kale inay yeeli doonaan ay goolal badan ka dhali doonaan marka taas aysan u dhicin koox wuxuu ku soo talageli doonaa difaac adag inuu dhiso waxaana qabaa ciyaartoy fiican oo dhexda u joogto oo Holbiya oo aad u shaqo badan iyo Ndombele inkastoo uusan dheelsin laftigiisa oo aad u fiican u shaqo badan raggaas hadoo uu difaaca hor dhigo inay isdifaaci karaan weer celina Hun Min aad u orod badan joog inkastoo Harry Kane ahayn ciyaartoy orod badan oo uga faa'iideysan karo kubadaha weer celinta
inuu wax uga dhashto iyo koonooyinka inuu ku dadaalo laakiin muu qaba ana cayaar furan haddii uga hor yimaadeen Liverpool waxaan qabaa Tottenham waqti hore in laga badinayo guushana Liverpool waqti hore raacayso marka saas daraadeed Antonio Conte waa macallin weyn wuxuu isku dayayaa kooxdiisii kooxda Liverpoolna isku tayamaha inuu difaac adag u galo oo meeshaas oo kadibna weer celin oo meeshaas oo guul ku gaaray laakiin cayaar furan oo lugta la isku saaraay ma maleynaa inuu la imaan karo Liverpool ciyaaraha weynaa waxay la ciyaartay Chelsea iyo Man City barbardhac la gashay Arsenal way ka badisay Man United way ka badisay haddii kulankan ay ka badiso Tottenham Liverpool ma oran karnaa horyaalka inay City tahay kooxda kaliya ee ay isku haystaan waybu agtaaba City iyo Liverpool inay tahay sababtoo Chelsea waxa muuqata inay dib u gorasho bilowday ay gadaal u sii socoto marka xaaladda hadda waa City iyo Liverpool City waxaan la soconaa xilligan markii la soo gaaray inay xawligeeda ay bilaabayso xawligeedana aan ka aragnay sida ay ku sameysay Leeds ay ciyaartoydii oo hore joogay oo wada bedelay oo ciyaartoy cusub Kevin De Bruyne muddo dheel oo xataa Kevin De Bruyne hore ahayn in la keenay oo meeshaasna laba gool ka dhilay ciyaar aad iyo aad u wacdar badan ay soo dhigeen City xawligooda kor u soo kacsan Liverpoolna ma rabto inay dib uga naqato meeshaas inay ka sii wada ay ayaga rabtaa inay cagta u saaraan waxaan la soconaa 101 markay gaareen in Liverpool ay raacdeynaysay City ay in markay badisay ayagana badinay tiyo kala ayuu kulub nin araayma waxaan ognahay markay ku badgoon isla markii Salah Imaan lagu qabta ayagana ay dhaliyaan wuxuuna haystaa rag hadii ku badal soo gaarsiyo goolka dhaqso dhali karo marka sabab oo City uga haro ima muuqato haddii Afrika ay aadaan raggaas ma ogi oo cid bedeshay ma jirto la waayo laakiin sida kale ma u maleynaa inuu ka harayo Tottenhamna hadduusan Conte ka taxadarin waxaan qabaa sidii Man United oo kale in 10 la siinayo 10kaasna uu og yahay waana nin Talyaani marka waxaan qabaa inuu isdifaaci doono oo xataa haddii laga adkaado wax la dhihi karo waa u qalmaan 2 iyo 1 iyo in saas looga badi karo goolal badan inuu iska ilaalinayo inuu difaac intuu adkaysto weer celin wax ku dhaliyana waa dhici kartaa laakiin Harry Kane haddii ciyaarihii lagu yaqiinay oo la soo baxo oo numberkii 9 lagu yaqiinay gool dhalintiisa